كرو عيال واوضة إن ده وحبا لك كرشة هذا نقف اللي بكسكي يدو لكلوية ولا كلوية ركسيه هذا نقف اللي بكسكي كرام كي بوحلا وإنه يرو أغلق أنتو إلهي كودا لي صاحبي يا سامود ognahay fanaankeeni weynaaynay macaan hilaa ayay hodan cabdiraxmaan ku sheegtay inuu $300 lacag gaaray saxday lacagtan oo noqotay lacag cambaar iyo tuka cambaar la ku noqotay nimcaan hilaa oo ahaa fanaan Soomaaliyeed gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa carigaas iyo Mareykanka ayay haadan Soomaalidu sheegaysaa inuu xaday lacag $200 iyo 3 inta u dhaxaysa saaxiib intaad muuqaalka gudagal waxaan ka codsanayaa inaad fiidiyoga like saarto sina share gareyso soo kale barteena YouTube-ka Cabdalla Deeqsina ha subscribe inoogu sameeyso waanad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan nimcaan hilaa oo ahaa wiil Soomaaliyeed amba fanaan Soomaaliyeed ugu dambeyntiina ka soo shacabay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo haadan hodan cabdiraxmaan sheegtay inuu xaday lacag $200 taasi oo loo soo diray ceebay taal oo waxa aad lagu xumaado nimcaan hilaa oo isagu mar dhaw tahay la wuxuu sheegay inay waxaas sharaf darro iyo board ku tahay magaciisa iyo sharaftiisa hay'adan cabdiraxmaan doonayso inay isaga ceebayso nimcaan xasan cabdi nimcaan hilaa ayaa halkaas ay sharaftiisa ugu dhamaatay oo inuu afka furtay hodan cabdiraxmaan oo ahayd naag iyo inteeda badan alkuleysata tina qaawan oo masarka xidhan ayaa fanaankan Soomaaliyeed caan ka ceebaystay nimcaan hilaa oo ahaa nin qaniya nin geesi dhalaya nin sharaf iyo karaamo ku dhaxlo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto Hargeysa haday tahay Muqdisho haday tahay nin kulaha magaciyo maamus dadka Soomaaliyeed ay ciiseeyaan gabi ahaantiisana nin shaarkiisu cad yahay ra'yigiisuna cad yahay ayay hodan cabdiraxmaan oo kay aragtaba sawir la gasha kay aragtana guursata ceebaysatay waxay ugu dambeyntii hay ku sheegtay inuu $200 xaday arrintan ay dad badan u fahmeen markii ay su'aalayo ugu hormaray arriga Mareykanka $200 number iyo tamayo laakiinse waxaad maskaxdiina gelisaan horta nimcaan ma yahay nin maanta baryootamayo su'aashu waxay tahay waa maya ma ahani baryootamayo maanta nimcaan hilaa waan dheer banaan tagay waa ninka hantidiisa iyo naftiisa voice ku filaaday waa ninka madaxiisa iyo mijihiisa Mareykanka joogaan ee maanta ku raaxaysanaysa isaga xaaskiisa balse hodan cabdiraxmaan maxay tahay ula jeedadeeda maxay tahay falka ugu weyn ee nimcaan sidan ugu galayso inagu ma ogan xaqiiqooyinka dhabta iyo waxa ka dhaxayn kara labadan balse waxay ahaayeen oo kaliya ognahay inay ahaayeen laba qof oo saaxiib ah hayna ka soo wada jeedeen gobolka wadal ugu horeyntiina ay saaxiib ahaayeen sidoo kale sayga hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaa ayaa ahaa laba qof oo saaxiib ah meel ku soo wada koray muddo fogna isyaqiinay balse haadan ma oga xurgufta ka soo dhex wajahan balse waxay dad badan saadaalinayaan ambahay waaneen inay tahay sida ugu hormarin ninkeeda Mursal Muuse isna uga xanaaqay taasi oo dabada la dhacayo dumarka kale ay su'aalayo badan inay ka qaadan doonaan tahay lacag $200 number iyo tamayo laakiinse waxaad maskaxdiina gelisaan horta nimcaan ma yahay nin maanta baryootamayo hadda waxa ku ambaray hodan cabdiraxmaan meel soo soo wacday تنا ورقلا لعب كسر تسيل جوكتي تاعن تاعي يا كاي لا يا لو دريو يا صوت دريو مركب اسكو يا عنان ماني لا بغى حسوي دي سنان هنين اش بيرك وجيفا balse saaxiib fiidiyoga like saar sina share garee wad ku maasantahay daawashadaada waxa ay sheegay inuu nin 200 weydiisan yahay nimcaan la xad arkaysaan balse waxa muhiim aragtidina inay ku soo aragtaan aan waxaan arkaa inay tahay sharaf dhac lagu sharaftilayay ninkan balse hodan cabdiraxmaan hay ka shaleyn doonto sida uu ninkan taageeradiisa iyo sida uu yahay markaan eegno hodan kulli waxa la yiri wax unba ka qaldamay walaalkeed ma toogateen amba cid ba ku soo dirtay nimcaase waxaan isleeyahay si iyo tula ayuu ugu falcelin doonaa isaga iyo taageerayaashiisa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan saleenahay ilaahu qaboojiyo dabka laba qof oo walaala ayna isku dhacaan amba iska hor yimaadaan in laba wax la jeclaado maaha xaasidkuna ma guuleysto qofka dadka isku daraan ma guuleysto waxaan leenahay saaxiibayal heshiiya idinka heshiiya si sharaf iyo xushmad iyo karaamo leh u heshiiya
saaxiibayaal idinkuna sida bal had idinla tahay iyo soo aragtaan inay hodan iyo nimcaan islaayaan oo iska hor yimaadaan amba waqtigan waxaan taaganahay haatan haybaala gaarida cusub ka dhaxayso iyagoo ahaa labada qof ee sawir ku jira amba asxaab dhow ahaa haddana ay maanta yihiin col bud iyo dhagax isku sita balse waa arrin mucjise leh hodanse maxay ula jeedaa erey